Assalaamu calaykum waraxmatullah. Hay-adaha sirdoonnada ee kala gedisan ayaa waxa ay ku dadaalaan inay howlaha basaasnimada ah ee ay sameynayaan ay fushadaan iyada oo basaasiinta shaqooyinkaas gudanaya aan laga warhelin. Haddaba si ay howlahooda u fuliyaan iyagoo aan la dareemin, ayaa waxay adeegsadaan qaabyo kala gedisan oo teknoolojiya cajiib ah ay ku dheehan tahay, taasoo u sahasha inaan la kashifin. Waa kuwan marka waxyaalo ay adeegsadaan hay-adaha sirdoonnada adduunka qaybtood. Mareykanka iyo Sofiyeetka xilligii dagaalkii qaboobaa waxaa ka dhaxeeyay xifaaltan aad u weyn. Marka la yaab ma leh in midba midka kale uu basaaso oo isku dayo inuu xogtiisa helo. Isku dayadii Mareykanka ayaa waxaa ka mid ahaa inuu toddobaatamaadkii Kane Moscow banaankeeda ku taala geeyay qalab soo qabta isgaarsiinta ay ku wada xiriirayeen saraakiisha ku sugnayd xero ciidan oo halkaas ka ag dhaweyd. Qalabkaas ayaa waxay ku qariyeen geed la jaray haraadigiisa oo kale. Waxa uuna qalabkaasi ku shaqaynayay qorraxda oo iftiinkeeda koronto u bedeli jiray. Haddaba qalabkaasi waxa uu qabto ayaa waxa uu u dirayay satellite uu Mareykanku lahaa, markaasna xogta u sii gudbinayay carriga Mareykanka. Muddo kadib ayaa waxaa la sheegay in ciidamadii Sofiyeetku ka war heleen oo qaateen qalabkii. In shayga ay wax ku basaasaan ay beddelaan oo wax kale u ekaysiiyaan maaha arrin ku cusub Mareykanka. Dagaalkii Vietnam ayaa waxa uu Mareykanku samayn jiray xeelad uu rabay inuu ku basaaso oo ku ogaado dhaqdhaqaaqa ciidamadii waqooyiga Vietnam ee la dagaalamayay. Haddaba Mareykanku waxa uu dhigi jiray qalab kashifaya dhaqdhaqaaqyada ka socda meelaha u dhow. Si uu u qoriyo oo aan loo arag ayaa waxa uu qalabkaas korkiisa saari jiray wax u eg saxarada xayawaanadii kaymaha ku noolaa sida tan shabeelka oo kale. Ilaa cidina isma dhahayso saxaradan meesha taalla, ciidamada Mareykanka ayay wax u basaasaysaa. Dawladda Sofiyeetka ayaa iyaduna waxay bartilmaameedsan jirtay inay basaasto safiirada Mareykanka iyo dawladaha Yurub. Safiiro wadamada Yurub qaybtood u joogay wadamo ka tirsan bariga Yurub oo Sofiyeetka xiriir la lahaa ayaa lala socday dhaqdhaqaaqooda oo la dhageysanayay hadalladooda. Waxa ay sirdoonnada wadamada samayn jireen markii ay safiiradu alaab ka soo qaataan wadankooda, ayaa waxay alaabtaas ku dhex qarin jireen qalab wax basaasa oo ay gelin jireen kabaha hoostooda oo kale. Maalin ayaa safiiradii qaarkood soo galeen guri la kantaroolay. Markaas ayaa waxaa la arkay in ishaaro ama signal ka baxayso guriga. Markii safiiradu ka baxeen meeshana joogsatay, markaas ayaa la gartay in qalab wax lagu basaaso uu ku xiran yahay safiiradii. Kadib markii la baaray ayaa laga soo dhexelay kabahooda hoostooda inuu ku dhex jiray oo ku qarsanaa qalab wax basaasaya. Haddaba qalabyadaas haddii signaliska ay bixinayaan lagu gartay, ayaa waxa kaloo Sofiyeetku sameeyeen qalab aan ishaaro ama signal aan samaynayn oo aan koronto iyo batteriba u baahnayn. Qalabkaas ayaa waxa uu u shaqaynayaa markii signal u soo diraan sirdoonka Sofiyeetka oo uu u soo gudbinayo codka iyo hadallada dadka jooga meesha uu yaallo. Qalabkaas ayaa waxay dhexgeliyeen alwaax loo sameeyay sida shaabadda ama tiim baraha dawladda Mareykanka oo urur dhalinyarada Sofiyeetka hadiyad ahaan u siiyeen safiirka Mareykanka dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka oo ay isku saf ka dagaalamayeen. Mareykanku markaas waa baareen in qalab lagu dhex qariyay, laakiin waxba waa ka waayeen. Muddo 7 sano ah ayuu safaaradda Mareykanka yaalay ilaa markii dambe la ogaaday oo la gartay sida uu u shaqeeyo. George Markov waxa uu ahaa qoraa mucaarad ah oo ka soo horjeeday dawladdii Shuuciyadda ahayd ee Bulgaria ka jirtay. Waa uu ka cararay wadankiisa oo waxa uu tegay London, halkaas oo uu u shaqaynayay hay-ado warbaahineed oo ay ka mid tahay BBC-da iyo idaacadda Mareykanka ee Free Europe, halkaasi oo ka dhaleeceyn jiray dawladdii Shuuciyadda ahayd ee wadankaasi ka jirtay. Maalin isagoo maraya wadooyinka London mid ka mid ah ayaa waxa uu dareemay wax ka qaniinay bawdadiisa midig. Gadaashiisa ayuu fiiriyay, wuxuuna arkay nin xoogaa ka dambeeya oo dallad uu sitay ay ka dhacday oo soo qaadanayay. Ninkii dalladda sitay ayaa isla markiiba meesha si dhaqso ah uga tagay. Meeshii nabar yar oo guduudan ayay yeelatay. Isla habeenkiiba xaaladiisa caafimaad ayaa ka soo dartay oo cisbitaal ayaa loola cararay. 4 maalmood kadibna waa uu geeriyooday. Dhakhaatiirtii ayaa waxa uu u sheegay inuu ka shakisan yahay in sun lagu dhuftay maadaama uu dawladda mucaaradi jiray. Meeshii uu xanuunka ka dareemay ayaa waxaa laga soo saaray irbad yar oo ay sun ku dhex jirtay. Suntaas oo la dhaho raisin ayaan waayadaas dawo loo hayn. Ciddii ninkaas dishay ilaa maanta lama soo qaban oo sidaas ayay ku baxsadeen. Teknoolojiyadan soo socota maaha mid weli si fiican loo dhaqangeliyay. Saynisyahano ka tirsan jaamacadda Mareykanka ku taal ayaa waxa ay sheegeen inay dhici karto maado qofka indhihiisa lagu shubo ay keeni karto inuu mugdiga wax arko. Maadadaas oo ka samaysan macdano aad u yaryar ayaa waxa ay u suurtagelisaa indhaha inay arkaan waxa loo yaqaano infrared.
dadku sida caadiga ah iftiinka qaybta muuqata ayay arki karaan, laakiin waxaa jira iftiinno aysan dadku arki karin sida infraredka. dadku sida caadiga ah iftiinka qaybta muuqata ayay arki karaan, laakiin waxaa jira iftiinno aysan dadku arki karin sida infraredka. iftiinkaas ayaa waxaa soo sii daaya wax walba oo kul leh sida dadka iyo xayawaanada. marka haddii qofku leeyahay awoodda inuu arko infraredka oo meel mugdi ah uu joogo, dadka ayaa u iftiimaya oo si caadi ah ayuu u arki karaa. marka saynisyahanadii ayaa waxay tijaabadan ku sameeyeen jiir ama dooli si ay u ogaadaan inuu arki karo iftiinka infraredka, waana ku guulaysteen. markii jiirkaas iftiinkaas lagu ifiyey birta isha ama qaybta madow ee wax aragta ayaa yaraanaysa sidii inay iftiin aragtay oo kale, halka jiirka aan maadada lagu shubin aysan ishiisu isbedelayn. tijaabooyin kale oo dheeraad ahna waa sameeyeen oo ay ku hubsadeen in jiirkaas maadada lagu shubay ay keentay in iftiinka infraredka uu arko. haddaba waxaa dhici karta in waa teknoolojiyadan loo adeegsado ciidamada si ay xilliga mugdiga ah ay wax u arkaan iyagoo aan u baahnayn in okiyaalo dheeraada ay xirtaan. saynisyahano kale oo u shaqeeya wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxa ay soo bandhigeen maado awood u leh inay baaba'do. maadadan ayaa waxaa la sheegay inay ciidamadu u adeegsan karaan inay ka sameeyaan diyaaradaha yaryarka ah ee droniska loo yaqaan oo intii loo diro dhul cadow ah, markii hawsha loogu talagalayna ay gudato si aan loo arag ay baaba'do oo noqonayso waxaan jirin oo kale. intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi